garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf magaalada Gaalkacyo waxa maanta ka soo degay wafdi balaaran oo hogaaminaya oo qaabilsanaha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador Michael Keating iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed iyo labada gudoomiye ee Galmudug iyo Puntland iyo saraakiisha ciidamada iyo xildhibaano iyo siyaasiyiin ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif Abgaalow oo ka hadlay madasha soo dhaweynta wafdiga Gaalkacyo soo gaaray ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay wafdigan ay soo dhaweeyaan iyo wafdiga inoo yimid oo ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska Mr. Keating iyo cidii kale la socotay dhamaantiin waa salaam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سلام كدب waxaan soo dhawaada qoladiina noo timid oo waftiga waa soo dhaweynayna waxaana ciidankii booliska saldhiga Shabeelle weeye waxay u tahay baan filayaa hal sano iyo 5 maalmood bay hadda joogan saldhigan ciidankii waa u jeedaan ciidan fiican oo maartay diyaarsan weeye waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed oo ka hadlay baahida ciidamada qabaan dhinaca qalabka iyo sidii loogu dhiirigelin lahaa sugidda ammaanka gobolka Mudug dhamaantiin aan aaminsanay waxaanu ka nimid wada doctor dib iyo rafaad iyo qaxar iyo dagaal wax laga daalay ummadda Soomaaliyeed ay ka daashay shacabka Soomaaliyeed ka daalay dagaal iyo colaad iyo qabiil sokeeyay waa laga daalay maanta waxaanu taaganahay Ilaahay maantiis meel aad u wanaagsan oo arkaysaan magaalada Gaalkacyo isku furan ciidankii booliska oo goodirka sitay oo calaamada goodirka ay dhab ka tahay ee rumeeyay inay wadanka u shaqeeyaan aad baad u mahadsantiin waxaan rabnaa insha Allah idinka Ilaahay meeshan u socono waa inoo cad waxaan u soconaa dawladnimo waxaan u soconaa kala dambeyn waxaan u soconaa sarreynta sharciga ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay wafdiga Gaalkacyo soo gaaray oo qaabilsanaha qaramada midoobay Ambassador Michael Keating. When I came here 2 years ago, I was not allowed to leave the airport on security grounds. I had to stay and meet everybody in the airport buildings. And now I'm here and I'm going to be going through the town, going back and forth across the border between Galmudug and Puntland, and that's just great. Masinti. Thank you. Thank you. Jibril Umar Adan, Television Caalamiga Ariel, magaalada Gaalkacyo.